Muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxa ay martigelineysay isku dhacyo ciidamada dawladda u dhaxeeya. Isku dhacyada ciidamada ayaa waxa ay ka dambeysay kadib dood dhex martay labada dhinac. Isku dhaca ciidamadan ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada boolis ay isku dayeen in si xoog ah ay ku dhaafaan isgoyska Baarayaan oo u xirneed ciidamada militariga. Taliyaha ciidamada lugta General Oduway Yusuf ayaa la sheegay in isgoyska Baarayaan uu ku socdaaliyay sida daraadeedna loo xiray wadada. Ilaa iyo 2 ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyootay israsaaseynta ciidamada dhex martay halka 2 askari oo ciidamada booliska ka tirsan lagu dhaawacay. Isku dhaca ciidamadan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada booliska isku dayeen in si xoog ah ay ku dhaafaan isgoyska Baarayaan oo u xirneed ciidamada militariga. Taliyaha ciidamada lugta General Oduway Yusuf ayaa la sheegay in isgoyska Baarayaan uu ku socdaaliyay sida daraadeedna loo xiray wadada. Ilaa iyo 2 ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyootay israsaaseynta ciidamada dhex martay halka 2 askari oo ciidamada booliska ka tirsan lagu dhaawacay. Magacyada dadka rayidka ee ku geeriyooday israsaaseyntaasi ayaa lagu kala sheegay Salaad Jerry iyo sidoo kale Shiraaye. Xaaladda goobta lagu dagaalamay ayaa haatan weli ahayn mid degan maadaama ay ishor fadhiyaan labada dhinac ee dagaalamay. Weli ma jiro wax war oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee gobolka Banaadir taasi oo ay kaga hadlayaan israsaaseynta dhex martay ciidamada booliska iyo kuwa militariga.